كما هذا علينا أنا وقاضي يا مقعية يا مقع جالية بقول الصومالي هنا وعن الله إنها هي جالية إسبولا آدي أدب ما ستين ضمان ضدك سقيب قلي وحن ربع مرلبات إن ما عليو ضدك سوء بابولي كان يردي هوشان صوص ميسي dumarkii gabdhihii iyo aabayaashii iyo walaaladii dhammaantood guryahan cunadan macaan noo soo diyaariyey waxaan leenahay jazaaka allah ilaahay idinka ajirsiiyo walaalayaal waxaa la socotaan waxaan ku jirnaa bishii ramadaanna waa la wada ogyahay inay tahay bishii cafiska iyo bishii maaragtay barakada ilaahay waa noo hirgeliyey annagoo wadankii soomaaliyeed aan joogin ee joogna wadanka netherland dhexdeeda inaan ku cibaadaysano ku xusno ilaahay awoodiisa na siiyey waanu ku maasiyey dadkii aasaasay iyo dadka haddaba gacanta ku haya waxaan rabaa marka hore inaan mahad celiyo dhammaan maanta maalintii sabtigii ugu dambeeyey taa bisha ramadaan inaan u mahad celiyo dhammaan dhalinyarada meeshaas taagan mid sida wanaagsan ay ugu qaybiyaan ama u abaabuleen afurkan diyaarinteeda iyo wanaajinta qof kasta oo ka soo qayb galay inuu meeshiisa sugu joogo loogu adeego waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaanan mar rabaa ku dhaho u sheego jaaliyadda idima iloobin waxaan rabnaa markii ramadaanka uu dhammaado kadib inaan idin mahad celino maadaama hadda ay tahay maalin afura waqtina aan loo helin insha allah waxaan rabnaa in abaalgud iyo abaalmarin ilaahayna uu idin sii doonaa innagana aan idin ballan qaadno anoo ku hadlaya magaca dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa oo kale inaan meeshan ku xuso sidaad la socotaan waddankan dad waa lagu soo kala horreynteeda macnaheedu waxaa waaye inaan waddo jeexno waddadii la jeexay waxaa waaye inaan dad soomaaliyeed nahay dad muslim nahay dad wanaagsan nahay taana waa hirgelinay waxaad aragtaan dhismahan ama meeshan aan hadda fadhino gacanta waxaa ku haya ummadda soomaaliyeed waxayna ku timid dadkii idinka horreeyey inay wanaag tuseen dadkan ay tuseen inay shaqaysan karaan inay dariska tuseen inaan nahay dad asuub leh maxaa yeelay islaamnimadaa waxay tahayba marka ugu horreysaba inay tahay nafarayso inaan marka hore guriga wanaagsan ka soo baxnay taana waa muujinay waxaan leenahay dhalinyarada cusub ayagana waxaan leenahay meeshan waa idin furan tahay soomaali oo dhan baa iska leh cid laga xiga ma laha qof kasta oo soomaali yimaadana fursaddan aan hadda meesha aan ku helnay oo kalaan la hayaa ka faa'iidaysta dadaala waxbarashada ku dadaala isdhexgalka ku dadaala qof kasta caqiidadiisa islaamka ee soomaalida isagoo haysta ayuu horumar gaari karaa annagana waxaan idin ballan qaadaynaa haddaan nahay guddiga jaaliyadda soomaalida inaan ummadda soomaaliyeed aan ka gadno waddanka Holland dowladda Holland aan tusno dad barwaaqaysan dad dadaalaya nidaamsan inaan nahay taas waa mid waxaa jirta maanta inuu nala joogo aan rabno inaan isxasuusino wacdi yar inaan gashano marka hore inaan bilaawno ka hor waxaa jira yar wariye ah oo yaasiin la yiraahdo oo Soomaaliya ka yimid magaalada Abidora nooga yimid inuu wax yar oo taariikhdiisa ah iyo Soomaalinimada uu soo arkay iyo halkan ku arkay inuu nooga ramo aan dhageysano waxaa la duubayaa waa warbixin marka yarka dhalinyarada asagana aan marka hore noo hadli doona waxaan u mahad celinaa dhammaan magaalooyinka ka kala timaadeen waan ognahay inaan wada tilmaamo Koevoorde Ermelo Nijkerk Raalte Weesp Kamben Nunspeet Zwolle Kamben yaan hilmaamo marka waxaan hilmaamay Ermelo dadku ugu waaweyn wariyaheenna ka yimaado Bashiir Barrow waa u mahad celinaynaa emana ka timid emana noo joog bareeda noo joogta ma sha Allah marka meel kasta laga yimid waa maasiti ya Baba Felt odaygu ugu weyn Maxamed Wali aan hilmaamay aasaasiyaasha odayaasha halka fadhiya waa aasaasiyaasha jaaliyadda Soomaalida wax badan ay u soo dadaaleen waxa joogay Yusuf Islaam waxaana la jooga mataqaana Xuseen asagana nooga yimid Cabdirashiid magacyadooda lama tiri karo Ali Cabdalla Saalax oo maanta marti noo ah ومالنتي قدام بيسي رمضان كله وإيمانا يا وأنا كفر حسنا وأنا نشوف نفردال وعربنا إن المركور وصل ياسين أو يرنا غلاه يا ماموس كستوى حلا هذان إنه مدبر بشهر رمضان بركيسين كسو تشرني وقت بدن إسلاق قادناي أفرونا أحسن هل كان كقادناي iyadoo ay tahay waliba inagoo ka faa'iideysanaa anagoo meel fog ka nimi ma garan karo intay isu jirto Abidooran iyo Isfoolo laakiinse hal saac inaan u soo soconno sidaanu halkan kala qayb qaadano ayaan u nimi khaasatan anigu waxaan ka imi hadir waxaan joogaa anaga iyo xaajiga idinku inugu weyn majliska inoo fadhiya
isku mar baanu nimi waan is wareysanayo isku mar baanu nimi 8 bilood meelaha ayaan aniguna joogaa waxaan ka imi magaalada Burco gobolka Togdheer South taqaanaan nin ka soo jeeda halkaas ayaan ahay wariyana waan halka ka soo warrami jiray in badan hadeer maan warramin intii aan ka soo maqnaaba waxyaabo aad baan ugu faraxsanahay jaaliyadiinani sida maamuuska leh iyo sida fiican aad noo soo dhaweyseen iyo waxaad samaysateen abadooran markaanu joognay ama se markaanu kuur galay ma jirin meel jaaliyad leedahay waxaa igu maqaalaa inaan maqlay in reer ahaan la isku qabsaday in waxba ay socon waayeen in maxkamad la isla galay runtii aad baan uga xumaaday laakiinse waxaan ku farxay markaan arkay jaaliyadda Isfoolo inay samaysteen meel loogu soo hagaago iyo majlis si fiicanna loogu afuro majliskaas si wacanna loogu wada sheekaysto majlis Soomaaliyeed uu yahay si kalgacalna loogu soo dhaweeyay aad baan ku qiirooday waana ka helay waana la dhacsanaay inta markaan ka gudbo waxaan halkan mahadnaq dheer uga jeedinayaa gudoomiyaha jaaliyadda Cabdiqaadir Cali Nuuno oo si fiican u soo agaasimay iyo kooxdiisa howlwadeennada ah oo iyaguna si miisaan leh iyo si maamuus leh intii rabadaantana ay socotay 4 wiig aanu ka qayb qaadanaynay si fiican ugu adeegayay dadka waayeelka iyo waxgaradka iyo mas'uuliyiinta iyo dhalinyarada halkan iskugu timi ugu shaqeynayay iyagana waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad idinka siiyo muddada intaa leegad hawshan soo wadeen sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay ma jirto mana arag meel Soomaali inta leega oo jaaliyada intii aan joogay Holland sidoo kale waxa la sheegay inay jirto Amsterdam iyo Abadooran kaliya meel jaaliyada ay leedahay meel kale Soomaali Netherlands ay ka furantahay inaan jirin si qalbi wanaaga ayaan aad iyo aad xalay Isfool ayaan uga jeedaa Abadooran ma aha Isfool iyo Amsterdam halkaas waa qalad yar iga dhacay runtii aad baan ugu faraxsanahay jaaliyadan reer Abadoor xalay Isfoolo sida qiimaha badan ee maamuuska leh intii aad wadeen hawshan aan kala soo qayb galnay wanaag iyo kalgacal ayaan idin haynaa aniga iyo dhalinyaro fara badan oo iyaguna halkan ila fadhiyo oo saaxiibada ay ula socday runtii aad baan ugu faraxsanahay sida aad iskugu laab xaarantiin sida aad iskugu urursantiin sida kalgacal kale aad u wada fadhidaan runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan gaarsiin doonaa bulshadii aan ka yimi reer Abadooran waxaan leeyahay ku dayda reer Isfoolo iyo agaarkooda iyo dadka ku midoobay halkan ku dayda baan leeyahay wanaaga iyo qalbi wanaaga iyo waxay samaysteen iyo sida wanaaga leh runtii waa waxyaabaha qabyaaladuna oo waxyaabaha dadka kala irdheeya qabyaalad xumaduna oo waxa ugu xun ee aan loo baahnayn markaad maqashid waxyaabaha hadeer masaajidka Turkiga waa ka Abadooran waa kaan ku tukano habka iyo nidaamku u dhisan yahay waxaad moodaa waa jaaliyada weeyaan waa sida fiican ee lagu tukanayo waayo waxaad arkaysaa nidaamka jaaliyadaasi sida ay wax u dhisteen sida u waxeeyeen ma arag jaaliyad Soomaaliya oo Abadooran ah ama oo leh masaajid taasina waxa keentay tafraaruqa bulshada iyo dhibta ka jirta bulshada oo aan isfahansaneyn xiriir lahayn dadkii aan wada shaqeynayn hogaamiyaha fiican wuxuu gaarsiiyaa bulshada meel wanaagsan ayuu gaarsiiyaa waan soo koobaya hadalkaygu aan badiyay aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha jaaliyadda oo isaguna hawshan si laxaad leh si hagar la'aana si hufnaana iskugu habeeyay aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba si kaliya laaba ayaan idin salaamayaa ilaahay hayna kula siiyo rabadaanteeda ciid wanaagsan ayaan leedahay caafimaad qab ilaahay haynagu ciid siiyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba السلام عليكم. كم يوم تكلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام هالمرة إن شاء الله تعالى إن جو أي مرة يسابشان بركيسن رمضان مركا خفل بحال الدنيا إنه كبرارو أيا وحيت هاي وحين قصف فضله أيا وحيت هاي إنهم بحنا سكات الفدرقة
marka insha allahu tacaala in yar ayaan sheegi doonaa maadaama qof walba oo muslim ah ay waajib ay ku tahay inuu bixiyo sakaatulfidriga marka waxaanu sheegi doonaa ayaa waxay tahay waajibnimadeeda sakaatulfidriga iyo aamusa dadka shaqaynaya keliya fadlan ceeb waa ramadaan waa afran ku jira aamusa iyo waxay wax u tahay ay cunaan masaakiinta waa laba dan mid adiga ayay dan ku tahay midka kalena masaakiinta ayay dan u tahay marka waxaa la doonayaa ayaa waxay tahay inuu qofka ku baraarugo inuu bixiyo haddaba muxuu bixinayaa qofka maxaa la bixinayaa qofkii wuxuu bixinayaa ayaa waxay tahay 3 kiilo oo raashin ah ayuu bixinayaa ha noqdaan timir ha noqdaan raashinka midka kale digirta bariiska waxyaabaha la cuno ayuu bixinayaa marka su'aasha meesha taagan ayaa waxay tahay qofka lacag kaash ah ma bixin karaa marka culimadu way isku khilaafsan yihiin laakiin xadiiska sida aan hore ku soo sheegnay ayaa waxay ahayd saacan min tamrin aw saacan min shaciirin wa inuu qofka raashin bixiyaa waa hadigii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sidaas ayay ahayd waxaana intaas ku tagay in aan marnaba la bixin karin lacag kaash ah sheekh albani ibn uthaymin iyo ibn baas ayaa waxay ku tageen waxay tahay inaan marnaba la bixin karin wax lacag ah laakiin maadaama aan joogno dal aan dadka masaakiinta ah aysan joogin waa lagu ogol yahay inaad lacag aad u xawisho wadan kale si lagugu iibiyo raashin oo dadka masaakiinta ah loo siiyo taasoo kale way fiican tahay ibn uthaymin allah karaal naqday ayaa wuxuu leeyahay ayaa waxay tahay qofka waxaa la doonayaa oo waxaan loo jideeya ayaa waxay tahay shacaa'irta islaamka waa in ay arkaan maxaa yeelay maalmaha ciida ah markii la gaaro dad ayaa waxaa jira aysan waxba haysan marka dadkaasi ayaa la siinayaa si ay maalintaasi quud ugu dhigtaan oo ay maalintaasi dadka walaalahooda ee muslimiinta ah ay kula ciidaan si farxad ah marka waxaa la doonayaa ayaa waxay tahay in la bixiyo salaada ciida intaan laga soo bixin waa in la bixiyaa waa in lagu dadaalaa haddii la bixiyo salaada ciida kadib maxaa dhacaya qofka hadduusan cudurdaar lahayn oo si kas ah oo salaada jimca oo salaada ciida kadib uu bixiyo waxay noqonaysaa sadaqaatun min sadaqa ayay noqonaysaa laakiin hadduu qofka bixiyo qabla salaati al-ciid waxay noqonaysaa sakaatul fidrigi oo saxa ayay noqonaysaa laakiin laga yaabi qofkii lacagtii inuu ka diray aysan gaarin ama qofkii loo dhiibay uu xanuunsanaa uusan bixinin cudurdaarkaas oo kale marka ay jiraan diinteena ma cusla ee way fududahay markuu soo xasuusto ama markuu waqti uu helo ayuu bixinayaa insha allahu tacaala marka waa waajib na saaran dhammaanteena inaan bixino waqtigeeda sakaatul fidriga insha allahu tacaala إن شاء الله تعالى يوم ديبا إن شاء الله تعالى أنت سأين إسبراروجيني هذا نوحن كوارجيني يا واحد هاي الشيخ حسن شيخ حسن كم قاعد جبنا ماذا قرط الله بحيو يو خفك أي كواجي ويسو يو إلا يو وقتي وكأجي هاي إن شاء الله تعالى وحن كبلاوينا يا واحد هاي واجبني ماذا حديث ورينا عبد الله ابن عمر الله كرنا يا وحوليه هاي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم أي وحو واجبيي زكاة الفطر رمضان وحو واجبيي أي وحيت هاي صاعا من تمر أو صاعا من شعير إن لبحيو صاع تمر أما صاع شعير على العبد وحبحنا يا وحيتا كواجب ساعة على العبد والحر خفك عضونك يا خفك حرت وحلق الدنيا يا وحيتا كواجب ساعة خفك عضونك يا خفك حرت من الذكر والأنثى يا خفك لبك يا ددك ننك يا ناتا أي كواجب ساعة والصغير والكبير يا كي يرى عنك يا كي وينابا من المسلمين أو مسلمين تكمدا زكاة الفطر وحي كواجبتا يا وحي تهي انتان هدا عن صوت شيغني خفك ير خفك وين ناكتا نينكا او كمدا خفك مسلمين تكمدا وحلو واجبي يا وحي تهي
in qof walba oo muslim ah in uu bixiyo sakaatul fidriga ah waxayna waajibtaa ayaa waxay tahay maalmo ka hor soonka waa la bixin karaa sakaatul fidriga ah marka kuma xirna sakaatul fidriga inaad haysato xoolo badan ama maal badan inaad haysato culummada ayaa waxay dhahan ayaa waxay tahay qofka hadduu haysto maalinta ciidda iyo habeenkeeda wax uu cuno waajib ayay ku tahay inuu bixiyo qofkaasna wuxuu ka bixinayaa ayaa waxay tahay qof walbo uu asaga mas'uulka yahay ha noqoto waalidkiisa ha noqoto xaaskiisa cayaalkiisa waajib ayay ku tahay in uu bixiyo sakaatul fidriga marka xigmadda loo jeedeeyey maxay tahay in la bixiyo sakaatul fidriga xadiiska sugan cabdullaahi ibnu cabbaas ayaa wuxuu leeyahay farada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam sakaatul fidri nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu waajibiyey sakaatul fidriga tuhratan lisaa'imi waxaa loo waajibiyey ayaa waxay tahay wuxuu alla subxaanahu watacaala ku nadiifinayaa qofkii soomanaa ayuu ku nadiifinayaa min allahwi waalrafathi maxaa yeelay soonka dhexdiisa shaki iyo waxay wax u tahay ay cunaan masaakiinta waa laba dan mid adiga ayay dan ku tahay midka kalena masaakiinta ayay dan u tahay marka waxaa la doonayaa ayaa waxay tahay inuu qofka ku baraarugo inuu bixiyo haddaba muxuu bixinayaa qofka maxaa la bixinayaa qofkii wuxuu bixinayaa ayaa waxay tahay 3 kiilo oo raashin ah ayuu bixinayaa ha noqdaan timir ha noqdaan raashinka midka kale digirta bariiska waxyaabaha la cuno ayuu bixinayaa marka su'aasha meesha taagan ayaa waxay tahay qofka lacag kaash ah ma bixin karaa marka culimmadu way isku khilaafsan yihiin laakiin xadiiska sida aan hore kusoo sheegnay ayaa waxay ahayd saacan min tamrin aw saacan min shaciirin waa inuu qofka raashin bixiyaa waa hadigii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam sidaas ayay ahayd waxaana intaas ku tegay in aan marnaba la bixin karin lacag kaash ah sheekh albani ibnu cuthaymiin iyo ibnu baas ayaa waxay ku tageen waxay tahay inaanan marnaba la bixin karin wax lacag ah laakiin maadaama aan joogno dal aan dadka masaakiinta ah aysan joogin waa lagu ogol yahay inaad lacag aad u xawisho waddan kale si lagugu iibiyo raashin oo dadka masaakiinta ah loo siiyo taasoo kale way fiican tahay ibnu cuthaymiin allah karaal naqday ayaa wuxuu leeyahay ayaa waxay tahay qofka waxaa la doonayaa oo waxaan loo jideeya ayaa waxay tahay shacaa'irta islaamka waa in ay arkaan maxaa yeelay maalmaha ciidda ah markii la gaaro dad ayaa waxaa jira aysan waxba haysan marka dadkaasi ayaa la siinayaa si ay maalintaasi quud ugu dhigtaan oo ay maalintaasi dadka walaalahooda ee muslimiinta ah ay kula ciidaan si farxad ah marka waxaa la doonayaa ayaa waxay tahay in la bixiyo salaada ciida intaan laga soo bixin waa in la bixiyaa waa in lagu dadaalaa haddii la bixiyo salaada ciida kadib maxaa dhacaya qofka hadduusan cudurdaar lahayn oo si kas ah oo salaada jimca oo salaada ciida kadib uu bixiyo waxay noqonaysaa sadaqaatun min sadaqa ayay noqonaysaa laakiin hadduu qofka bixiyo qabla salaati alciid waxay noqonaysaa sakaatul fidrigii oo saxa ayay noqonaysaa laakiin laga yaabi qofkii lacagtii inuu ka diray aysan gaarin ama qofkii loo dhiibay uu xanuunsanaa uusan bixinin cudurdaarkaasoo kale marka ay jiraan diinteena ma cusla ee way fududahay markuu soo xasuusto ama markuu waqti u helo ayuu bixinayaa insha allahu tacaala marka waa waajib na saaran dhammaanteena inaan bixino waqtigeeda sakaatul fidriga insha allahu tacaala إن شاء الله تعالى يوم ديبا إن شاء الله تعالى أنت سأين إسبراروجيني هذا نوحن كوارجيني يا واحد هاي الشيخ حسن شيخ حسن كم قاعد اللهم إني أسألك الهدى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والغنى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والغنى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأخينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربي توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أعدنا رضاك وجنة الفردوس. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. dhow aamusa walaalayaal waxyar aan isku qalma halo asalaamu calaykum waa dadka keliya ee meel ay joogaan laga yaqaan adduunka oo dhan inay qaylinayaan laba haddii si socda qofood laba dhexdiisa waryaa leh waxaan rabnaa wax yaraa nagu soo fiiray oo arrin yara oo waxaa jirta magaaladani magaalooyinka u dhow dad ramadaankii ka horreeyay joogay xanuunsan ama geeriyooday ayaa jira ilaahay u naxariisto waxaan rabnaa marka qof kastaba kullu nafsu daa'iqatul mawt uu dhimanayaa laakiin qofku ka dambeeyo inuu ilaahay u baryo ayaan isku dayna meeshaan inay fadhi jireen wanaana joogi jireen qaar isbitaal ku jira qaar waa geeriyooday ilaahay baa ifsaday inaan faatixada isugu darno hal mar faatixa waxaa kaloo jira niman dhalinyaro ah oo sharci sugayaal ah waa taqaanaa qofka markuu waddanka ku cusub yahay arrimo badana isaga furan iyo dad saafira dad xanuunsan iyagana faatixada ma marna walaalayaal waxaan kaloo haddana faatixo maraynaa sida uu siciid sheegay wiilal dhalinyaraha jira oo guurkii ku adkaaday ama qarash ha noqoto ama dooritaankiiba dhib ku noqday iyagana in muraadkooda ilaahay sal faataxo mara faatax yaraan wala saaxiibanahay oo isagana ka tirsan jaaliyadda ayaa wiilkiisa habeen dhow shil galay dhaawac mooto ku galay isagana waxaan rabnaa inaan faataxada u marino ilaahay inuu u shafeeyo faatax cantar la yiraahdaa cantar waxaa jooga nin professor waxaa jecel yiraahdo naga maqan wiil hore nala jooga xalayna nala joogay argab yaraa ku dhacay iyo xoogaa shufa isagana faataxada loo maray ilaahay inuu ka faa'iido علي عبد الله وحداي ادي فاتح الله اخريه xogaa shifa lagu daro waxa uu maleynaa xigti baa ku suufin wari ka dambeeyay faatixada waxa waa lacag la'aan way waa maasantiin insha Allah waxa waa tacshida noo imaanaysa ya dadka afurka soo sameeyay hadaytan oo duceynay waa u celinayna ilaahay muraadkooda sahlo faatixada loo baro dadkaas aad iyo aad u maasiin وما ستي مركب قفكو هذا الكجرة أو الربيع وحشيقه ما كرفوك والله سينا يا ممكن لليا إنسان جاي دور في أخوي إنسان ما أقولك سوف الكتال عربي شيء تركي خلينا نكمل بروبلم يا أوكي بدانك في ولا بيت صار سعوتان ما أنت وحي هيد مالين أفرقة وحنا كل من سنة مجال إسبولا أفرتي ويك إلى صور دافي وحنا رجوا جنين اللي يراه محمد أحمد كور دجنا أين دوفر هذا مجال إسبولا دجن مرة نسوس فعل سود دجدونا ويل كاسوانين اللي يراه وأدي هذا وقف قاطع هبكر بقول لسيدا يوحك استقلوا بهيه وحلينا هاي ولا ليال ما نمد الصوماليات النذر كوكر النول ملك سيجوت محمد أحمد على سحرته جاليد الصومالي هولن وأني فرس بيقان وأدي يعني في سمارتي إلهي وحبري
waxaan idinka codsanaynaa marka inaad fursadda uu hayo aqoonta ilaah baray inaad uga faa'iidaysataan maxamed adigana waxaad ku darka ان شاء الله waxa qalada u fahamta abti Eindhoven si fiican u deganaba laakiin koortaada waxa jooga Isboorna ma sha Allah markan waxa ka shaqeeyaa Strat marka ka shaqeeyaa Sumsane Soomaalida iyo dad kale si breefia u soo biya town firfa noqdo kayfay wax walba oo guryaha oo dhismada oo ku saabsan insha Allah telefonkeeda mar walba TikTok-eedu saaran yahay insha Allah waa ku sii waxaa kaloo la idin sheegayaa dadka ku dukanaya masaajidka turkiga insha Allah ayaga waxay dhaheen ciida waa insha Allah taala arbacada marka waxay leeyahay waxaa salaada ciida la galaya insha Allah taala hal saac iyo bar qofka yaqaan masaajidka turkiga wuxuu dukanayaa salaada ciida hal saac iyo bar marka qofkii imaan karo waqti ciyoobay galaan waqtigoodana waa waqti hal saac iyo bar insha Allah taala hal saac iyo bar salaada oo ciida way dukanayaan insha Allah qofkii imaanaya masjidka turkiga insha Allah taala والله بدي ان شاء الله لكن انا وسوينا هذا الشك واي مبتاع لكن اربعه يقين واي نو لبض السنة قدام بين السنة لبض السنة قدام السنة تقريبا سنة ولا لا سنة الشك ما هو لكن أربعة يقين نه وقتي يكسوا سوا ولكن إن شاء الله حرجينا هنا إن خط إن شاء الله أربعة كلية شو الجملة غير بين تناوب ونقطة أربعين كل سنة. أما دم لا عندك رادية هل بير ناخذ الصوم دم. هذيك نتكلم. عندك قاضي يا سامي. هاي عارف إنك هذا ما. هاي ما لقى. ما يسوق. وحير يا سوق. لا لا تجينا يا. ميكروفون وايس تعاون ما عليه كل لو بين احواني او قعود كان قعود يدو حواي مشمش لفوي ولا بعد شو قاعد شو قاعد هيا هذا حق وجهك عد كل دوي الله